waa xaaladda jidhka iyo maskaxda oo caadi ahaan soo noqnoqota dhowr saacadood habeen kasta, taasoo habdhiska neerfayaashu uusan shaqaynaynin, indhuhuna way xidhan yihiin, muruqyadu waxay ku jiraan deganaan iyo miyirka qofka oo hakiya shaqadiisa. Isbedelada habnololeedka ee fudud waxay kaa caawin karaan tayada hurdada. Haddaba halkan waxaan ku soo gudbin doonaa 10 talo si aad u hesho habeenkii hurdo raaxo leh. Hurdadu waa ka qayb nolosha. saacadaha hurdada iyo soo toosida waqti isku mid ah maalin kasta waxa ay saameyn doontaa jirkaaga inaad si fiican u seexato. Dooro waqti aad u baahan tahay inaad dareentid daal iyo hurdo. waa habka ugu wanaagsan ee xal u noqon kara hurdo yaraanta. Jawi hurdo. Goobta aad seexanayso waa inay ahaato meel ay ku yartahay sanqadha ama jabaqdu si loogu nasto loona seexan karo. Heer ku dhexdhexaad ah, iftiin iyo buuqa waa in laga yareeyo ama laga xakameeyo si jawiga goobta aad jiibsanayso ay kaaga caawiso inay si fudud kugu soo degto ama ay kugu soo dhacdo hurdo. Jimicsi joogto ah. Jimicsi dhexdhexaad ah oo joogto ah sida dabaasha ama socodka waxay gacan ka geysan karaan yareynta caqabadaha hurdo yaraanta maalinta ka dambaysa. Laakiin iska hubi inaad samaynin jimicsi badan sida orodka ama jimicsi dheeri ah waqtiga hurdada, maxaa yeelay waxa ay ka qaadaysaa hurdada waxaana sabab u noqonaysaa inaad soo jeedo habeenka intiisa badan. Iska yaree isticmaalka kaafiinta ama cabidda kafeega. Cabitaanada tamarta qofka sare u qaada ama kookaha gaar ahaan fiidkii. Maadada kaafiin waxay faragelin ku samaysaa hurdada, sidoo kale waxay ka hortagtaa inuu qofku u seexdo si wanaagsan. Taa beddelkeeda isticmaal biyo diiran, caano ama shaah caadiga ah balse habadsan. Dheriga cuntada. Cunida cunto aad u badan gaar ahaan goor dambe oo habeenkii ah waxay carqalad ku noqotaa qaabka hurdada ee qofka. Waxay shaqo dheeri ah u dirtaa maskaxda xilliga dheefshiidka, taas oo ka mashquulisa maskaxda inay nasato ama qofku inuu u seexdo si caadi ah. Jooji sigaarka. Cilmibaadhis la qaaday ayaa lagu ogaaday in dadka sigaarka caba ay ku badan yihiin kuwa aan dareemin inay si fiican u nasteen inta ay hurdeen habeenkii marka loo eego kuwa aan cabin. Baarayaasha jaamacadda Johns Hopkins qaybteeda dawada ayaa ku sababeeyay maadada nicotine oo laga helo sigaarka. Sigaar cabistu waxay soo xumeynaysaa xanuunada habdhiska neefsashada sida neefta ama xiiqda iyo dhibaatooyinka kale ee neefsashada sida neefsiga caadiga ah, kuwaas oo adkeyn kara helitaanka hurdo nasasho leh. Nalka ama iftiinku wuxuu maskaxda u sheegaa in la joogo waqtigii la toosi lahaa. Sidaa daraadeed meesha aad seexanayso ka dhig mid mugdi ah ama madow ah intii suurtagal ah aad hurdo. Xitaa qadar yar oo iftiinka telefoonka gacanta ah ama kombiyuutarka ayaa carqaladeyn kara soo saarka maadada melatonin, waa hormoon ka caawiya habeynta wareegga hurdada iyo guud ahaan helidda hurdo raaxo leh. Bedel cuntadaada. Iska yaree cuntada iyo cabitaanada ay ku jiraan kafeego sida cuntooyinka fudud iyo shukulaatada xilliga habeenkii. Qorshaha hanaanka cuntadaada. Cunto fudud oo dhammayso dhowr saacadood ka hor waqtiga jiifka ama hurdada. Ka fogow cuntooyinka basbaaska leh ama cuntooyinka culus, kuwaas oo ka ilaalin kara inaad seexato kuna keeni kara niyad jab ama xaalado caafimaad darro. Ka fogow hurdada maalintii. Iska ilaali inaad jiifsato ama aad seexato inta lagu jiro maalinta. Hurdo awgeed habeenkii dadka hurdo la'aanta ka cawda waxay u muuqdaan inay seexdaan maalintii. Tan badana waxa ku horseedi karta hurdo maalmeedka. Daraasado la qaaday ayaa waxay muujiyeen in si joogto ah loo seexdo 2 saacadood ama in ka badan maalintii ay ku horseedi karto tayada hurdada oo xumaata habeenkii iyo xitaa hurdo la'aan. Waqti ama dami elektarooniga. Isticmaalida aalada elektarooniga goor dambe oo habeenkii ah waa mid u daran hurdada. Daawashada telefishinka, ciyaarista ciyaaraha fiidiyowga adoo adeegsanaya mobilka iyo shabakadaha bulshada isku xidha waxay kugu adkeyn karaan inaad hurdo heshid. Waxa khubarada caafimaadka maskaxdu talo ahaan ku soo jeedinayaan inaad joojiso dhammaan waxyaabaha elektarooniga ah sida kombiyuutarada iyo telefoonada gacanta si aad u hesho hurdo tayo leh.